seriously dagaalkan aniga aan galay ee aadka u adkaa oo 2 sano iyo 1 sano aan ku socday bini aadan aan ku kala bartay belief or not ku dhaa qabiil kastoo noqdo bini aadan aan ku kala bartay dad badan waxa aragteen isoo caaya aniga Naciim ahaan oo aan ugu jawaabin sababta ugu jawaabi waayay waxay tahay dadkaas waxa dhici karta in abaal aad adiga ogeyn aan u hayo waxa aragtay beesha dhulbahanta dad badan oo ka dhasho aniga caaya waliga ma aragtay anoo beesha dhulbahanta u jawaabay sababta u jawaabi waa mataqaanaa dagaalkii xoog badnaa aan soo galay beesha dhulbahanta 100% iga soo qayb qaateen daas waa aan dhulbahanta ugu jawaabi si kasta ii soo caayaan marka 2 qof iyo 3 qof oo TikTok joogta I don't give a shit kaas aniga abaal bay igu leeyihiin beesha dhulbahanta I wish inaan ahaan lahaana I wish inaan ka dhalan lahaa waa musikra aniga dhibaato iguma fadhido I don't want ina emotion maalkayga raacaa by the way heesan ku raaxaysanayna may waa joojinayahay waxay tiri wax kala ka badan oo Facebook raasido in gabar islaam ah walaashiina oo Soomaaliyeed lagu xadgudbo fiis lagu hela maxaa macna uu soo kordhinaya oo aan ka ahayn dambi markaa kor ayaa hadaladii ay tiri sidaas qayb shaashada garaaca milyan loo gaartay Nakakar waxa ay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee sida aadka loo daawado isla markaana ku soo bandhigta baraha bulshada suugaano u badan Brambur waxa ay sheegtaa inay abaan tahay Nakakar ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa Sihamay si weyn abaayo ugu xadgudbay dad fiican ee walaal bal ku socda moogta wuxuu soo ugu dhagayaa Cabdiqaadir bas ku dhahay shaashada garaacan leeyahay Soomaa ma garaacayaan ma adro garaac bal Assalaamu alaykum shaashada garaaca kuma hayn karo moogtahay walaalayaal shaashada garaac u jeeda ayaga warbaadan ku socdo ku soo qorayaan xataa Naciim warbaadan ku soo qorayaan milyan haduu gaaro lama ribood garayn karo milyan gaarsiye Assalaamu alaykum Umar Saad Cabdiqaadir bas soo live ku jiro oo game ciyaar ay kaga tuureen why like dadkan wax ribood garaynaya why I don't understand waa sax waa adawgaada anaga ku sheegay adawgaada weeyaan dad aan ku faraxsanayn meeshan ka soo muuqato why dadkan wax tuuraya dadkaas dad aad garanayso ma ahan maxaysa maya de waxba inay shaashada garaaca oo insha Allah waxana gaarsiisaan adiga milyan gaarsiiye milyan kala gaarayo waa kee caawi cilada jirtay soo qortay abaayo soo dhaw Sihamay ku soco abaayo waa dhawahay Naciimoy horta waxa taa qof aad u nasiib badan fahanteen sababta Ilaahay waa Soomaali ka dhaliyay runtii hadda anaga Soomaalina qof qiimihiisa ma naqaan abaayo marka dhimatid bas baqiyaha ku qreena inta ka horeysa tafaasa ugu dhagaana maalinka dhimatidna konton halaad ba keenina dhaqankeena والله انت قفك نول yahay lagama yaabo hada wallahi hada Naciim riyaat marka laga hadlo anigu markaan adiga ku difaacay ama qabiilkaaga ma aqoon saaxiibada Facebook afreen ahaan wariga farana ka ahaan maalinka soo baxday maalinka lagu dhaganaa wallahi anoo maalinta ugu hor sawirkaaga Facebook la keenay oo dhahay Naciim waa cidaas komitida aan qoray gadaal u fiiriyay ma fahanteen thank you qof kasto adiga kaliya ma ahane wala qof kasto abaylo dadna Sihamay ogoya anu waa itaqaana qof alaal qofki ii hiiliyay aniga koran kala socdaa iyo cida ii hiilin hadda koorna gabay baa ka tiriyo waxa iri bah ilaa ma goortay dhamaan igu dulbooyaysa bah sareysna baga itiri beerka ka ogsooni aniga cid walba wax ii tahay waa aqaanaani maanta today ani Soomaali isma kay barayso Soomaali dir iyo daarood iyo hawiye iyo jareerweyne iyo isaaq iyo reexa marka cadcad ani cid iskay barayso maanta ma jirto qof walba intuu dagaalkan halka sano ninka ragga ah oo boqolowga ay ula jiray qof walba meeshu ii taagan yahay waa ogaani
qof walba Aad iyo meesha aad. uu taagan yahay ogahay ninkii ii sokeeyo ilaa mu adeerkay aabay la dhash ku dhala I don't care ninkii ii sokeeyo oo wanaag ii galay iyo ninkii iga shisheeyay ninkii ii sokeeyay ani wanaag dan aan ii galin oo igu wiirsanay iyo ninkii iga shisheeyay oo ka danqanay xumaatadayda labadaba waa ogahay inaa ogeyna u malayn aniga waa baabaya aniga qof kastoo nicimo u damqaday ama qof kastoo nicimo u hiiliyay waa horta kii Soomaalimo kugu hiiliyay uu mahadsan yahay kii tolimo kugu hiiliyay mahadsan horta qabiilka Ilaahay baa inaa isku barana keenay teeda kale wayba diinta waa golba qofka walaalkaaga hadii laga khaldan yahay inaa garabsiisa u hiilisid maya sometimes dagaal waxa u gashaa dad iska dhici dagaalna ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu imtixaan ku marinayo because dadka bini'aadamka waa wax ilaahay kugu soo imtixaami kara soo ma imtixaan ilaahay ku marinayo waxbuu kugu kala barayaa maybe inaa ahaa qof qabiil oo ummadda kala saarta oo rasiista qalbi ahaan ama dadkeeda aad u jecelo qabyaalada ku dagaalanto oo macnaha dadkeeda aan laga marin inaa ahaa maybe ilaahay inuu tusaayay in ay jiraan kuwa aniga aan ii dhaweyn sida dadka qaar kaloos iigu yihiin oo iiga danqasho badan kuwaan maybe ilaahay inuu tusaayay qof walba meeshuu ii jiro you never know yesterday waxa tolkayaan dhahay maya mar waa hadashay macnaha taasoo kale ceeb maaha laakiin baa haddana waxaan ku leeyahay dagaalkii yesterday aan soo galay iyo dagaalkii sida loo aan soo maray والله كل يوم بدنا نقاط dagaalka aniga isdifaacay waa ogahay laakiin se yesterday dagaalkii aan soo galay bini aadanka aniga ila dhashay iyo kuwa iiga shisheeyay waxay doonaan ha ahaadaan qof walba meeshuu ii jira ilaahay i kala baray experience uu ilaahay i siinay trust me 1 year and half gabar la caynay oo dumar oo hormoonkeeda isbedbedelay oo one day qabiil intay u soo fariisatay أنا عايز هذا والله كوركاس وحياة أنا كل شيء أنا وحيين ما عرفتي واكل برتي أما إيسوكي أما أديرك أبيل شاكو دلا أما البادرة أهانو أما الريحرس هو أما عمر محمود هو أما مجرتين هو أما كهرتي هو أما دارود هو أما كبلالح هو قفل دارود إسماعيل هالنقطة أما هوية هالنقطة قبيل كست والله ماشي ويجوا ما توقع horta qofka walaalkaaga ama saaxiibkaaga horta maalintu garab u baahdaa garab istaagan waxa uu tahay male ayna biri ku faantid horumarkiisa iyo quruxdiisa iyo waa khalad da maalintu ku baahnaada garab siintada labaad aniga maalinka media ka hadlaysid inaa dad waxaan soo kala sparano marba iska xaasoo waliga ma arkin qiimo oo qabiilka aniga wallahi adiga aan marna qabiil badan aan la wali ma arkin qiimo si kasta lagu soo caaya xataa rag waaweyn qoral ku soo furteen ku caynayaan haddana leef ku soo galayaan haddana wali ma sha Allah xasha lillah waliga qabiil ma galin maya aniga inta ii soo qabsadaan qof wada aniga nin habar gidira ahay niciimoy hayay ii waran waa is wareysana waan kala tagnaa waxyaabo caadi ah dadka sheekaysan magaalada waa isla shaqaysana dad qaar isla shaqaynaa jiro shaqada aan ka shaqeeyada isla shaqayna waligood social media kama soo hadal qaadin ana baraali waxa la dadka qabiil soo waa kusnaa walaa xina niciimo qabiilka soo haysiyaa way ku tarmaado gurbiga soo haysiyaa stop abay horta waa ogahay hadii la waramo waa la walaal beela laakiin se ogaada meel kasta iga joogtaan waa ogahay هذا كلا واحد ربع إن هذا تاكل والله ما حد دس قلبي أنت على هالكور بنيت وحسكري العلاج رب بشر بوصل هساي حتى النعيم كشف وهل هي سمع علا والله مركز شغلة حتى وإلا وين كذا سوا نجحي هذا الشيء كذا هالمرة مين مرة ربع ورد واد مينا كهذا I don't want to talk about it لكن إدريس ولا يقصد إدريس أفلقات الإدريس أما إدريس قبل وقبل عين فرق إنه حول ما قام كرم مدرس ما يلا على كل حال أيضا كما الله يتوب كان ما نقصيه لكن أما أفقدون أمانة كذا يسوع عين أما قمر نيمان نركا أرلي عدي هاي سمعنتو ولا وصلنا والله شيء ذي كجعلها والله سيتها هاي ما أنت مقالنا تخصص سوا ملينا كاش قولي قد حديثا فضيا محمد